lanti wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal walaalayaal meel walba oo aad dunida dacaladeeda ka joogtaan ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Samafale Cabdi fadlan walaal qaali waxaan ka codsanayaa inaad subscribe nagu dhiirigelisid muuqaalkan like saartid like waxba kama dhigaysaa lacagna ma ahane una share garay asxaabtaada ku mahadsanid laba warbixinood ayaan maanta idiin haynaa warbixinta koowaad ayaa waxay tahay xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha senatarka aqalka sare ee Mareykanka ayaa waxaa geeriyooday aabaheed xildhibaanada ayaa qoraal ay soo dhigtay social media ku sheegtay in ugu dambeyn geeriyooday aabaheed oo ay aad u jecleyd warbaahinta caalamka ayaa hadal haysa in xildhibaan Ilhaan Cumar aabaheed uu u dhintay xanuunka coronavirus 4 maalmoodna uu ku jiray mid ka mid ah isbitaalada ugu qadiimsan uguna waaweyn dalka Mareykanka xildhibaanada ayaa boggeeda social media ku sheegtay in aabaheed uu xanuunsaday muddo 1 sano ah siyaas darteedna wararku waxa ay sheegayaan in xanuunka coronavirus oo ah xanuun khatar badan gelgelay dunida oo dhan uu u dhintay Ilhaan Cumar aabaheed oo 75 jir ah annaguna waxaan u tacsiinaynaa qoyskii iyo qeheladii uu ka dhintay Ilhaan Cumar aabaheed arrinta kalena waxay tahay fanaaniinta waayaha cusub ayaa disleegtii soo saaray soona muujiyay boggooda YouTube ku soo muujiyay heestii nabar iyo naxdin ee cajiibka ahayd heestaas oo 3 saacadood iyo 24 saacadood ka yar ay ku daawatay dad gaaraya 1 milyan oo qof heestan ayaa waxa uu viewskeedu sii maraya 664,000 halka disleegteedu ay marayso 81,000 muuqaalkan waxaa like saartay 25,000 oo qof fanaaniinta waayaha cusub ayaa waxa ay sheegeen kooxda nabar iyo naxdin ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay been abuur sameeyeen iyagoo oo sheegay in heestan la saaray ilaa 100,000 oo dislike balse xaqiiqada markii la arkay dadweynuhu waxay ogaadeen in fanaaniinta waayaha cusub ay saxan yihiin oo aan heesta declares badan aan la saarin daawadayaalna intaasi waxay ahaayeen warbixintii ugu dambeysay aan idiin haynay inta aan warbixintan mid ka xiiso badan ku kulmi doono waxaan kaga tagnaa sidaas nabadgelyo